السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتي احترامك بدن وين سلامينا واختيادو وناكسن نورل قروح بدن يا عافيمات تاما يعني دين رجينينا كسو دوادا كنال كان العافيماتك يدريالك عافيماتك نولوشا muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanaynaa waa qoraalladii aynu ku wada wadaagi jirnay ee ay noo soo diri jireen kaalantiskeenna ka tirsan kanaalkeennan caafimaadku sababaha aynu qoraallada u soo qaadanno ujeeddooyinkoodu waxay ku salaysan yihiin inta badan saddex inay wax inooga digayaan iyo inaynu wax ka faa'iidayno oo ay wax inugu toosinayaan iyo inay yihiin markaa masalo u baahan in bulshadana loo bayaamiyo isla markaana muhmuhiyo shaki badani uu ku jiro oo qofku laga yaabo waxa markaa isaga uu arkaya inay u fiican tahay laakiin ay khatar abuuri karta caafimaad ujeeddooyinkaas ayaynu u soo qaadanaa qoraallada aynu ka arkhino ama ay noo soo diraan walaalaheen haddaba qoraalkan oo runtii walaal ka tirsan walaalaha ku xidhan kanaalkani uu nala wadaagay ama dadka inta badan falaawarka ka kanaalkeenan oo daawaday ama dhegaystay muuqaallo hore oo baxay ama markaa aynu soo gudbinay oo aynu uga digaynay bulshadeen isla markaana wax ka mida aynu tilmaamayno inuu lahayn waxyaabahaas sameeya ayaa qoraalkanina uu daba socdaa walaalkan waxa uu ku bilaabayaa qoraalkiisa sidan wuxuu yidhi dhibaato aad u ballaadhan ayaa haysata waxay igaga dhacday ama igaga qabsatay buu yidhi oo aan ku guda jiray ama aan ku sifoobay balwa aafeedka aadka u foosha xun ee sigada ayaan waxaan waday buu yidhi muddo aad u dheer dhibaato ayaa i gaadhay buu yidhi nololeed iyo mid maskaxeed iyo mid caafimaad bay iskugu kay dartay buu yidhi oo ay la daadegtay wuxuu yidhi waxyaabaha ugu waaweyn saddex qodob baan ku soo koobayaa buu yidhi ay bahashaasu i gaadhsiisay ay naftayda gaadhsiisay ee noloshayda ay gaadhsiisay ee mustaqbalkaygana aan ugu dudayo ama aan ugu baqayo ama aan markaa uga shakisanahay inay aakhirka ay arrintaasi ayga horrayso oo mustaqbalka haddii ilaahay gaadhsiiyana aanu ku kulmayno dhibaatadaasi oo dhibaato mustaqbalka ay saamaynaysa ay tahay walaalkani waxa uu tilmaamayaa wuxuu yidhi aafadaasaan muddo dheer waday da-aaddaydu aad uma weyna laakiin waxaan isku dhigay buu yidhi qof aweyn timahaygii way rifmeen dib bay u baxeen waxaan yeeshay buu yidhi bidaar muuqaalkaygii guud ahaan wuu isbeddelay dadkii aanu isku faca ahayn ama aanu isku daada ahayn waan ka weynahay buu yidhi oo da-daydu way kor martay oo waan ka weynaaday buu yidhi dhibaatada igu dhacday ee ii geysatay waxaa ka mida buu yidhi waxaan isku arkay buu yidhi kalsooni darro kalsoonidaydii ayaa baabaaday wuxuu yidhi shay kastoo samaynayo oo aan ku qabanayo ama aan markaa aan isiraahdo qabo wuxuu yidhi kalsooni uma hayo waxaan aaminsanahay buu yidhi kalsooni inaanan qaban karin inaanan waxaa samayn karin inaan anigu qof iska dullaysanahay naftayda ayaan canaantaa xilli kasta naftayda ayaan dagaal kula jira aan hiifayaa oo markaan canaananayaa buu yidhi haddii miisaal buu soo qaatay wuxuu yidhi haddaan isiraahdo akhyaartii iyo dhallinyartii sawirra la gal kalsooni darraday haysataa wuxuu yidhi sawirkaas marka layga qaado waxaan arkayaa buu yidhi inaan qofka ugu liita aan ahay ama qofka ugu dullaysanaan ahay ama qofka ugu foosha xunaan ahay aad baan isku tiilaanayaa buu yidhi markaan sidaa u tagana sawirka wandhiliid garaynaya waxaanu ii muuqanayaa buu yidhi inaan dhallinyartii aan ka fool xun ahay muuqaalkayguna wuu ka duwan yahay sidaan ahaan jiray iyo sidaan imika ahay buu yidhi dadkanu isleeleekay markaanu wada soconno waan ka daal badanahay buu yidhi oo muuqaalkayga wuu ka weyn yahay oo wuxuu yidhi timahaygii baa baaba'ay oo wuxuu yidhi muuqaalkaygii gebi ahaanba qof weyn buu isku dhigay qaab noocaasa ayaan ahay buu yidhi dabeetana wuxuu yidhi aad bay kalsoonidaydu u dhimatay oo ay u baaba'day oo xataa marka aan la joogo markaan iyaga dheehdo ama aan arko iyo markaan anigu is arko ee marka anigu aan isi sawiro ama sawir iyo taswiir layga qaaday aan arko aanu ku wada jirno iyo sidaan ahaan jiray iyo sidaan imika ahay dhibaato farqi aad u weyn ayaa ka jira buu yidhi dhibaato aad u ballaadhan ayaa igu dhacday buu yidhi arrinta labaad ee kale ama saddexaad aan isku arkay waxa weeyaan buu yidhi shaki iyo go-aan aanan qaadanayn wuxuu yidhi wax go-aana ma qaadan karayo xilli kastaan istidhaahda daa ama jooji ama aafadan ka tanaasul wuxuu yidhi ma dayn karayo way igu soo laabanaysaa haddana way igu soo laabanaysaa
haddana way igu soo dhibaatadaas ay haysatay buu yidhi oo iyaduna mushkilada muddo badan bay daba socotay buu yidhi oo imika aan joojin kari la'ahay xilli kasta habeen kasta go'aan baan ku seexdaa maalintiina wuxuu yidhi waan maalin oo dhan go'aan baan qaadanayaa haddana maalin ka bacdi ama usbuuc ka bacdi ama markaa bil kadib bay iga dhibtaas igu dhacaysaa buu haddaba walaalkani wuxuu tilmaamayaa dhibaatadaas ay gaadhay buu yidhi qoraallo hore oo aad akhrideen bulshadu ay idiin soo dirtay iyo kuwa aad idinku markaa soo gudbiseenba waan arkay talooyinka qaar ka mid a ayaa yanfacaya oo markaa qalbigaygu aad ugu reexaysanaya waxaan idinka baahanahay buu yidhi bal sida aan sameeyo iyo waxa aan sameeyo iyo wax rajaa ma leeyahay mise sidaas ayaan markaa aan tareenka kaga tegay buu yidhi saasuu qoraalka inugu soo qorayaa walaalkani aad buu mahadsan yahay arrintani waa arrin inugu soo laalaabatay waa arrin bulshadeenna iyo qaar dad badani runtii ay dhallinyarta ka wacyigelinayaan isla markaa waa dad badan oo ku sifoobayna dabcan way jirayaan haddana waxaa jira dhinaca kale markaynu ka nimaadno ama talada walaalkan aynu u nimaadno xasuusnow malaayiin ummadda oo weliba aan adigu diin baad leedahay oo iimaan baad leedahay oo qof muslimnimo ku dhashay baatay oo ku dhex barbaaray dad kale oo aan intaaba lahayn ayaa markay arkeen aafadaasi noocay tahay iyo inay xataa aan ogeynba inay waxani dembi tahay iyagu ayaa markay arkay siday u laciifinayso jidhkooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda iyo maankooda waxaa markay arkeen siday u baabiinayso iyo firfircoonidooda go'aan bay ka qaateen oo way daayeen markaa xusuusnow waa dayn kartaa waanad ka dhaqaaqi kartaa waanad ka tanaasuli kartaa arrintaa inaad qalbiga aad ku haysaa ayaa qurux badan qodobka labaad waxa shayga ugu weynaynu u joojinaa inaku waxa weeyaan inaad alla ka cabsi iyo taqwad iyo iimaan inaad aragto inuu ilaahaagu kuu cadhoonayo aad dembi ku jirto oo markaa aad tahay qof jinsigiisii iyo tarankiisii mar kasta iyo xilli kasta dhibaato u geysanaya qodobka saddexaad waa inaad xasuusnaataa markaad aafadan joojiso waxaad ka fogaanaysaa dhammaan meelihii iyo waxyaabihii kugu kicin jiray waxaad yaraysanaysaa isticmaalka taleefanaadka waxaad yaraysanaysaa waxyaabaha inta badan muusigyada iyo waxyaabaha qofka laga yaabo inay beddelaan waxaad yaraysanaysaa goobihii xunxunaa waxaad yaraysanaysaa xidhiidhkii iyo sheekooyinkii waxaad yaraysanaysaa dadkii waxyaabahii kugu kicin jiray oo dhan baad yaraynaysaa waxa kale oo dabcan iyadana aad ka sii fogaanaysaa markaad arrintan aad joojinayso inaad isku daydo inaad cidlooto oo keli aad u baxdo oo goonni aad fadhiisato oo goob cidlo aad joogto arrintaana waad iska ilaalinaysaa iyadana waad ka fogaanaysaa markaad joojiso laba shay baad ku dhex wadaysaa cuntada nafaqada la aad yarayso soon labadaasaad ku wadaysaa cuntada borotiin kale ee daayatka waad iska yaraynaysaa soonkana maalintii usbuucii 2 goor ama maalin baad ka soomaysaa taasina way kuu sii xoojinaysaa go'aankaaga oo way kuu sii qabanaysaa go'aanka qaabkaasaad ku qaadanaysaa muddo kadib ilaa sanad ka bacdi ama dhowr bilood kadib markaasaad mustaqbal fiican rajaysanaysaa inaad reer iyo guur niyada aad gashato jidhkiina wuu isi soo gabayaa markaasaynu bilaabaynaa ama talooyinka aad qaadanaysaa la isnafaqeeyo qaabka la isku nafaqeeyo goobta la iska nafaqeeyo jidhkii waxyaabihii soo celinayay taladaana markaas ayaynu daaha ka qaadaynaa ama waxaad deehan doontaa muuqaalada aynu taladaa kusoo gudbinayno ama mar labaad baabad nala soo xidhiidhaysaa aanu muuqaal kuu soo diyaarinaynaa waanu kaaga soo jawaabi doonaa labadaa qaab ayaynu insha allah maraynaa intaas ayaynu ku soo ururinaynaa talada walaalkeed waxaynu ilaahay uga rajaynaynaa inuu dabayl caafimaad mariyo in dhibtaas iyo mashkiladda haysata addoonkaas ee shaydaan kuu qurxinayo inuu ka dulqaado inuu ahaado qof nashaadkiisii iyo caafimaadkiisii iyo kalsoonidiisii iyo curintii maskaxdiisu intuba ay dib ugu soo laabato intaas ayaynu ku soo ururinaynaa fii amaanillah waxaa su-aale qabtaa noo soo sheega waa idinka soo jawaabi doonaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu